قصة ما أنت قصوين كهروي كدوانتها لكن وقصة حقيقة ودعضي وآد وفائدة بدن لغاية أذيقنا إني كوغو دعضو سيفي عنو دقيسو كفائديسو فائدة السوقر ولا لها كلاني وسي قد بي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولجوكتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساهور إذن كيبال قاعدة جمعة والبو إيه قصة عصب قصة ما أنت وحيكو صابسنتا قصة دعضي كو دعضي نين مريكان oo shaqaale ahaan jiray oo shaqadiisa laga qabtay maalin maalmaha kamid ah nin shaqadiisu yimid markuu shaqada san u soo galay waxa laga horgeeyay fayraat waa lagu raacday shaqada waa kaga dhamaatay albaabka ka bax ninkii wuu margooday wuu walwalay laana shaqadan wuxuu ka shaqeynaa almost 20 sano ku dhawaad umrigiisa waa 40 sano wuxuu sameeyay ma yaqaano xaaskiisa ma shaqeyso asiga kaliya shaqeeyo asigoo walwalsan oo murugaysan oo meel allaala meelo ka bilaabala ayuu gurigiisa yimid xaaskiisu la firiisto wuxuu yiri shaqadii oo jeega aan ka soo qaadan jirnay oo guriga aan ka biilan jirnay waa liga soo raacday maanta wixii ka dambeeyay meel aan ka shaqeeyo ma hayo xaaskiisu way la fariisatay way la murugootay meelay wax ka bilaabanay garan waayeen wuu fariistay wuu fikiray wuxuu yiri waxaan sameynayaa gurigeegan rahna gurigeegan aan u dhiiba qof waxaan leeyahay lacag ideemi guriyahan dhisa asii markii hore wuxuu ka shaqeyn jiray najaar fuundi ah alwaaxidu ka shaqeyn jiray qolo uu tagay wuxuu waxa rabaa inaan lacag ideemisid gurigan ana damaana iga ah $4,000 ideemi marka ideemisid kadib waa ku soo shaqeysan ninka $4,000 uu qaaday wuxuu bilaabay marka guriyo inuu dhisdhiso kadibna uu siigo ninkii shaqaalaha wuxuu bilaabay marka shaqo asiga xor u yahay inuu ka shaqeeyo guriyo dhisa lacag yar uu ku gadana uu dhisa uu sii gada mid kale uu gadana lacag yar uu ku dhisa ilaa ninkii uu guriyihi u bateen oo u barakoobeen uu noqday nin milyaneer ninkaas ma taqaanaan ninkaas waa Wallace Johnson waa ninka iska leh hoteelaadka la yiraahdo Holidays Inn iyo wuxuu sameeyay equipmentiga caafimaadka iyo isbitaalooyinka waxay u baahan yihiin ayuu sameeyay ninkii buugii qoray waxa kamid ah markuu taariikhdiisa ka sheekeynay wuxuu yiri maanta hadaan ogahay ninkii shaqada iga soo raacday meel uu joogo inaan u tagaan hadiya siila sababtoo ah haduusan shaqada iga soo raacday lahayn wiligii shaqaalan ahaa laha meeshan hadda gaarayne ma gaareen wuxuu yiri ilaahay wuxuu ila damacsanaa maalintaas shaqadaas wax ka fiican laakiin aniga maanan dareensaneen wax badan aan ka faa'iideysanayna bal aaya kitaabka ilaahay ku jirto ayaan ka faa'iideysanayna ma sheegay idinka idin deynaya dhageysta walaalihiina kalena faa'iidada ka fahamteen usoo gudbiya jazaakum allah khair barakallahu fiikum assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa inoo jimcada soo socota iyo qisa cusub لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله